farsamooyinkii ay daaha qaadeen muslimiintii hore. barnaamijkeenna xogta dahsoon waxaan idinku hayaa qaar ka mida farsamooyinkii ay caalamkan u daaha qaadeen aqoon-yahanadii iyo khubaradii ka midka ahayd muslimiintii hore. caalimkii dhakhtarka ah ee al-Zahraawi ayaa sanadkii kumaad ee taariikhda miilaadiga waxa uu daaha qaaday oo bilaabay farsamada qalliinka dadka oo uu ka qoray buuggiisii ballaadhnaa ee 1500 ee beej ahaa. buuggaas oo markii dambe ay isticmaaleen oo ka faa'iidaysteen khubaradii caafimaad ee reer Yurub, taasoo sidii uu qoray ay ugu dhaqmayeen muddo 5 qarni ah oo xidhiidha. waxyaabaha ilaa xilli dhowaad dariiqadiisii loo adeegsanayeyna waxaa ka mid ahaa qaabkii uu u toli jiray jidhka qalliinka ka bacdi, waxaana uu ahaa dhakhtarkii u horreeyey ee dumarka ku soo qala ilmaha. arrinka kale ee ay muslimiintii hore daaha qaadeen waxaa ka mid ahaa qaxwaha ama bunka, iyadoo in badan oo caalamkan ku nool ay aaminsan yihiin inay Talyaanigu daaha qaadeen beerashada geedkaasi, ayaa haddana xaqiiqadu waxay tahay in wax isticmaalo ay ugu horreeyeen suufiyiintii reer Yaman qarnigii 9aad ee taariikhda miilaadiga, kuwaas oo u adeegsan jiray soo jeedkooda habeennimo. intaa kadibna waxa uu u gudbay dalka Masar oo uu uga sii gudbay dalka Talyaaniga. sidaasaanu caalamka ku wada gaadhay sharaabkan qaxwaha oo leh 1000 dariiqo oo loo diyaariyo. muddo 1000 sanadooda ka hor markii ay labadii inan ee walaalaha ahaa in Mareeg ay sameeyeen diyaaradda, ayaa gabyaagii muslimka ahaa ee dhanka cilmi falaga looga dambeyn jiray injineer Cabbaas ibnu Fannaas waxa uu marar badan isku dayay inuu sameeyo diyaarad. sanadkii 852 taariikhda miilaadiga ayay ahayd markii uu tijaabadiisii ugu horreysay kaga haaday oo ka duulay minaaradda sare ee masjid jaamaca weyn ee magaalada Qordoba, isagoo samaystay diyaarad ka kooban looxaan iyo xadhko, hamigiisuna ahaa inuu sida shimbiraha u duulo. haddana inkastoo aanay masaafadii uu rabay duulin, waxa ay dhulka ugu soo degtay si habboon, taasoo loo aqoonsaday inuu ahaa baarashuudkii ugu horreeyey ee dhulka ku soo kordhaya intii taariikhda aadamuhu ay soo jiitamaysay. iyadoo ay nadaafaddu tahay waxyaabaha ay faral yeeshay diinteenna suuban ee islaamku, ayaa waxyaabaha kale ee muhiimka u ah caalamkan ee ay muslimiintu daaha qaadeen waxaa ka mid ahayd saabuunta, oo tan iyo maanta loo isticmaalo qiyaastii ay xilligaa u sameeyeen muslimiintu. dhanka kalena shaambooga ayaa isna ah waxyaabaha ay muslimiintu u bilaabeen caalamka, iyadoo ninkii dhallinyarada ahaa ee Xamaama Bukhaara oo markii ugu horreysay sameeyey shaambooga sanadkii 1759. ashyaada kala duwan ee kiimikada ayaa ka mid ah waxyaabaha ay caalamkan ugu horreeyeen muslimiintu, iyadoo caalamkii muslimka ah ee Jaabir ibnu Xayaan oo kiimikaalka ka dhigay duni ballaadhan oo shuruuc iyo qawaaniin leh, iyadoo qaarkood ilaa maanta loo isticmaalo shuruucdii uu xilligaa u dhigay. waxaana caalamku fadli weyn ku leeyahay dhanka samaynta cadarrada. hannaanka xisaabaadka ee aljabra oo soo baxday qarnigii 9aad ee taariikhda miilaadiga ayaa iyana ah shay kale oo ay muslimiintu aasaaskiisii lahaayeen, waana xisaab loo isticmaalayay muddo dheer arrimaha dhanka qiyaasta iyo injineeriyada ama farsamooyinka. waxaana buuggeedii ugu horreeyey qoray caalimkii muslimka ahaa ee al-Khawaarizmi, oo sidoo kale lahaa helitaanka qaybo kale oo xisaabta ka mid ah. sanadkii 953 muslimiintu waxay sameeyeen qalinka daboolan ee furka leh ee ilaa maanta wax lagu qorto, iyadoo uu samayskiisa amray sultaankii dalka Masar al-Mu'izzi lidiinillah al-Faadimiy oo dalbaday in loo sameeyo qalin marka uu wax ku qoro aanay dhibcaha khaddu gacmihiisa iyo dharkiisa toona taabanin oo ku dhicin. xilligaasaa la sameeyey qalin qaabkiisu u soo dhow yahay ka aynu maanta adeegsano.